xildhibaan hani warsame sulub oo kamida musharaxiinta u sharaxan golaha wakiilada ee gobolka Sanaag ayaa ugu baaqday shacab weynaha gobolka Sanaag inay qaataan kaadhka diiwaangelinta iyadoo sidoo kalena sheegtay xildhibaanadu inay u bixi doonto qaar kamida deegaanada hoos yimaada degmada Cerigabo si ay bulshada ugu wacyigeliso inay qaataan kaadhka dhanka kale waxay ugu baaqday xildhibaanada dhigeeda ah ee ka sharaxan gobolka Sanaag inay bulshada ku wacyigeliyaan qaadashada kaadhka diiwaangelinta gobolkeena oo gobol baaxad weyn oo gobol reer guulaaya markaa waxaan kula dardaarmayaa inaynu isdiiwaan gelino inaynu kaadhka qaadano cod bixinta inaynu maxay ahayd amnigeena ilaashano muwaadinku xaq wuxuu in la doorto inuu wax doortaba xaq buu leeyahay marka bulshada gobolka Sanaag waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku baraarujinayaa iyo magaalaba inaynu isdiiwaan gelino oo kaadhka qaadano waxaan tagi doonaa insha Allah bilmilaay karimiyo oo qorshaysan inaan wacyigelin ballaaran qaado oo maxay tahay deegaamada miyiga ah iyo maxay tahay tuulooyinka shacab weynaha gobolka Sanaag ee sharaxan hanka siyaasadeed leh waxaan ku wacyigelinayaa inay dadka maxay tahay dhiirigeliyaan inay maxay tahay ay ku dhiirigeliyaan kaarka la qaato in maxay tahay goobaha miyada loo baxo in tuulooyinka loo baxo in dadka la fahansiiyo sida kaarka loo qaadanayo insha Allah bilmilaay karim warsame kaaf Cabdirashiid Aadan goob joog TV Cerigabo